السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدها همبلي وحلنا حلك أرجنتينا هدي دبعا حالي ساداش أدونك إلا قدونت إسبانيش أنت قبتين دالكي فافوريت كلا وبدنا فرنسيسك كلا جريم لبقول إبرك قبل شيء مال فريستا دهان وإسبانيش كفينال الصبحين أرجنتينا الشيكادة سوادي النوم وأبسد دهان صوبته عيارة كور أم بيبر وحلا سادالنا أرجنتين إن الصبح كران إكزاكتلي ساداشي برنامج كورجيس ما أنت كوشجنا لبقول يهال إن يكون بدنا هو إسكورد إذا هات تكل شو كذا كل دوين دابعين أيانا الصبح أرجنتينا وكون بدنا لبقول يهال إنجليز جبيو جعي هو كل عي عاو مركلة لقبت شيء مركلة تاريخ قرار بدل السي أرجنتين all to the way final وصبحين لبا قولي هالي وكبت شين كم بقولي بحنون بدن أرعاو توجل دمين سنة فرين قربتها مستوجل وحكد دمين سنة ملهن همبلي مركلة أرجنتين أن لا هدي أتي صاحب نقول صبرتنا سبسكرايب نوصل waxaan ku jirnaa live reportna isoo dhamaado ciyaarta intaan daawanayay dhacdooyin muhiim ah dabcan diiwaan galiyo marka sii duubay haddana muuqaalkan dabcan kistaan hor dhac waa natiijada ciyaarta maadaama 2-2 ku dhamaatay haafka hore waa ka warqabteen dagaalka iyo foodada iyo xataa on target maba jirinba wax labada xulba islaamay mal haafka hore dagaal la daawan Bruno lama daawaninbo mal isku soo laabtay daqadii kontii lixaad waxaan ka warqabnaa Ingiriiska hogaanka waxa uu dhibay Anthony Gordon Argentina waa laga naxsaday laakiin macallin Scaloni caaw super sub badalada uu sameeyay waa qamaartame ragiisa uu keensada kulli waa shaqeeyeen oo tuujal damiin madax balaarne waxa wax allaale waxa uu keenay follow daqadii kontii lixaad markii hydration break la gaaro biyo cabaalkii daqadii 65aad meelahaas ayuu wuxuu bilaabay difaac ku soo aroori difaac maxay ku tare markii comeback lagu sameeyay wuxuu dhahay wax alla wax weerar iska galay waxaas ma shaqeynayso waa maya tuujal caaw marka baash waa laga doonta cid uu eedsanay ma jirto calaa inta banaankaas uu ku dhacay comeback waxa bilaabay odaga la bilaabay kubad koornay dhag waxa waaye sida waa soo qaatay sida uu siiyay dabcan Enzo banaanka gama darbo shakab oo ciyaarta ka dhigay hal iyo hal waa daqadii 86 exactly malaasana ahadan jecel waa la ciyaar Ingiriiska lagu socdaa alaab kala haddana waaba kanaabo duqa haddana soo u gala warnaa duqa caaw caadi ma yaaqay midig iyo bidix geesa la kor isaan la soo dhawaal soo leexsan midig alaab waxa la keen loob aan caadi ahayn Lautaro Martinez iga qabadhay labada difaac dhexdooda ku jiray wadnaha soo Ingiriisku go wadnaha idin go waxa tartiib malaane raggan waxa waa aniga maalmo ka horna waa Argentina waxaan dhahay very committed waa warriors dagaalyahanno waa maba u eka xataa niman koob qaada baahida ka muuqato hadalkayga dib u xasuusta maalmo dhaweedaan dhahay nimankan saantooda u jeedo waxaan dhahay koobka difaacanay haddana every reason ay koob ku qaadi karaan heestan cabsi ma jirto Isbaanishka banooniga aragtiin la imaada nimankan indhaha inay ka galaan wallahi Argentina caawa badbaadin saaxiibayaal comeback waa li 9 daqiiqo lagu daray ilaa 12 daqiiqo iska socoto waxa waa tari waayeen Ingiriis waa la jabshay marka caawa laga بدي مركز هلاس هرد عيد لايف ريبورت كتوس وجود قلنا هاف كور محد عيد ذن محاسيد عن سلي إجنا سحب يال سود هذا سحب يال مركز دب بقول لا وانا هاف تايم كور عيارته وكور قبنا كورن كم رحسن ما بلا أركين بس وول كاب كان وبلا وده صوبته عيارته دم بهال ضرب أن تارجت ما يسندعين هنا عكان لو مركز وهرستن يمركز اللي بلا الديوان جنين تحوجها وول كاب كلا صوب بلا وأنت بدن بحالها كون سجال بقول لحدني إلا هذا أما لحدن كسنة قدام بس عيار نص ساعة ولا عيار كلهم وول كاب ولا بدو حول بأن تارجت إيش نسمينهم بجوش ضربة إسكو أدنى كونكي نرويج إنجليز كل حياة طبعا 29 دقيقة هاي لبده عنتارج السمين ولكن كان بقدرناه وهي عيارتكم بالله بتوالي يو كحنادس يو جوفاني سيموني وكون كان مع الإسكروني كسب بالله بكل يساب شنفا والقيب ترى عيارته قال يكبد نسوي عيارته ذي إنجليز كحناجي نكست قرشة وجب سنة قع ساعة ولا سوق ولا يا هاف تايم كور الدقني وحال سيدنا على إنجليز كإليوت أندرسون أضاق استاجي ميسي حتى وعب بالله هو كبدا أنتو عشت مركي الله ما لبا كل حقات فاول ورادينا فاول كيسن وكويرو جالا وحقوقات إليوت أندرسون isla sidoo kale Argentina ayagana waxa digniin ka qaatay kor Lisandro Martinez oo Rodgers ku dhagay intuu dabcan logo dhaxda laga tago kubad counter attack amal soo jabtay oo ku dhagay asna jaala la siiyay garsooraha marka Al-Fathi oo Maroccaanka asal ahaan dabcan Amerikaanka si fiican oo kulan ku manage gareynaya laakiin waxa moodaa in Argentina ay zaid u wadaan qashqashaado qaysan ka galaan ciyaartooyda Jacksina si ooga xanaajinayaan kulanka marka waxa waa Scaloni xidigiisa waxay ku soo galaan in provocation ku sameeyaan taariikhda markii dib loo raaca markastaba Ingiriiska score imaada Argentina waxa laga warqabaa Ingiriiska waa laga xanaajiyaa Big Four wuxuu dhahay barnaamij wargeysa xasuustiin dabcan waxa u baahan dulqaad sameeyno dulqaadka marka waxa waa ciyaartan half koor markii wax lagu sareeyo dulqaad dabcan waxay u baahan caadin Ingiriiskan waa adkaysteen saaxiibayaal sida iskuwaaka ee soo daabacayso waxa leeyahay half time ka hor markii aan xogta ku sareeyno kulan World Cup oo darbooyinka ugu yar la isku riday waa shortest ama fewest macnaha saddex darba kaliya labada xul isku riday wadar ahaan oo xitaa on target ma jirin xul goosha ku aadiyay lama arkin 19 foul waa la galay taasa waa leeyahay no shots on target ka warama dagaal caadi waa Japan la ciyaara ay kaartay xanaa nin walba qarsha u jabsan buuq
buuq iyo xanaaq half time ka hore markii la fiiriyo waa u jeedin xogta aan ka soo qaaday statistics ee dabcan isku waaka 0 goals 0 big chance 0 shot on target ma jirin laba shoot Argentina waxay rideen laba shoot Ingiriiskan hal darbe rideen sida muuqato waxa kale ku soo haray kubada xirada ganax lagu taabtay yaa taaban kara xirada ganax gali kara caaw half ka hore aan ka hadlaynay afar jeer kaliya ku taabtan isku mid ahayn xirada Ingiriiskan afar jeer lagu taabtay kubada xirada Argentina afar jeer lagu taabtay kubada waxa ku soo haray possession percentage waxa badnaa Argentina oo 55.5% kubada haysteen Ingiriiskana 44% kubada haysteen koornooyinka isku mid hal iyo hal gees kalaada la helay fauliska Argentina 12 faul galeen nimankan odayaashana 7 faul galeen marka kulan oo half ka hore waxaan daawanay oo qarshada ee jabanta waxba aan isku reebanaynin ala ay taal waxa sugan doonaa tactical balanki markii la fiirshay kulankan sida uu ku dhamaan doono laakiin half time ka hore aan joogno oo live reporting kana waxaan gacmaha saarna aragna oo fawda caadi kulankan fawdu ahay historicalna weligeed saan ee sida muuqato oo dabcan waxa leeyahay sida xataa hadda soo daabacis Opta waxay dhaheen historiga oo 25 minute ka half time ka hore biicabaalka la aaday qaabkan uu ekaayay Messi oo gacmaha tagay hebel oo dabagadi hebel oo qeylnaa hebel oo buuqaayo Forest 25 minute markii biicabaal la aaday jiqa ahayd isla sidoo kale 45 minute ka hore ku dhamaatay dagaalkii rabshada ku dhamaatay iyo sidoo kale dabcan 3 daqiiqo lagu darxitay waxa wala iska qaadi waa marka the history waxa waaye oo half time ka hore kulankii ugu rabshada badnaa half ka hor aan daawanay oo World Cup inta la daawanay taariikhdan keenaysi xamaasada iyo soo kale buuqa wallahi waxa way caaw waxa socdaa waa waxaan caadi aan saxabiyaal markii la isku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta waxa moodaaba in Ingiriiska ay fursadooda helaan ugu dambeyntii ciyaarta stable noqotay xoogaa buuqii qarracdi waa ka baxday what a moment kubad dabcan ninkii Declan Rice oo ka helay qadka ay ku xaso waxa isleeyahay mid Argentina difaac kan Nicola Bradley waxa kubadaas bixi Rice helay kubada waa la gadiyay garabka markay tagtay Morgan Rogers go'aanku macalinka caaw ku keenay 100% ku saxsanaa deep line uu soo dhigay Rogers waxa ay deep goosha horteeda markaas oo kaleeto waxa inta badan qalad galay ciyaartooyda full back ma ilaalin karaan ciyaaryahanka dabcan garbaha ka dhilaa meesha uu ka xigo saadartay marka Nuhu Molino is diyaaraninbo waxa ka soo hormaray oo kubada ku qabtay hoo iga qabadhay ninkii ahay dabcan Anthony Gordon wuxuu noqday geesi aan caadi aan unlikely hero geesi aan la filin sababtoo ciyaartan waxa la isleeyahay hadii wax laga go'aaminayo waxa go'aamin karo markii la fiirsho dabcan Harry Kane ama Jude Bellingham labadaas loo arko ciyaarta saameynta laakiin Rogers kubada uu soo dhigay saameynta ku yeeshay caawinteeda iyo Gordon laba geesiya soo bixin la filinaa Ingiriiska hoggaan ku dhiban what a moment Ingiriiska indhaha taagan Messi waa yaab ciyaartu waxay noqotay 1-0 daqiiqadii 55aad waa 56 ahayd ويا أرجنتين وحسنا أنت اللي كجرا مركز عيارته حاول دجالك وجوكسنا وإن لا عيارة مركز صوبته بلانكي أرجنتين وشقين واي تنوحي كنت مركز أرجنتين إنه صوب حان كوبدها لسه بدني قاعدين وحير كدبو أو جوفاني سيموني حرد الجناح لقى لسيق هذا سله تكل عن عادي هن أولي والتايمينج أو حلها لي جاد سبنس أو كوبد كبد بادي سبنس ودبل دقة أسيجن مملكته ومركز جول للشلا باستي وحير كدب 2 minute ملاس أول حيس كوبدها سدو جوفاني سيموني سيق هذا لها ريت هاد مدك لنا هدو سبنس وقلد لها تكل كاسنا وحين نقول البنالتي نقول لنا مركز تكل كاس وسمي ماسف هاي والله عياري أرجنتين بدل كودا سمستان نيكولا غونساليس ومعلن كان ليناردو برادس وبحد دقدي لحدن أفراد وحلو قسمين إلا صوبه وحلا ورر تمام go-aankii lagu keenay dabcan ninkii ah Nico Gonzalez qalad ma aysan ahayn sababtoo kubad halis badan oo adaga Messi uu soo dhigay oo madax uu la helay Pickford wuxuu sameeyay safe aan caadi ahayn what a safe badbaadadaas waa laga sheekeyn doonaa in muddo sidoo Pickford kubaddu u celishay war waxaan caadi ahayn live reporting aan ku jirno Pickford kubadaas uu badbaashay sidoo uu wariyaha u qeerishay malay kartiin Messi gees midigu joogo kubadda soo midig joogo bidix uu ku soo duubay iyo sidoo Gonzalez madax u la helay war ninka Pickford ah goosha diilintu ka celishay safe waa leeyahay kadib waxa la kala aaday hydration break la kala aaday ciyaartu waxay noqotay dabcan mid faraha ka baxdo Argentina ku qasbanaad macalinkooda in uu bedelo oo too much sameeyo sababtoo hadiiba lagu leeyahay goal reporting ku jirnaa sidoo kale xaaladda ay ku xuntay waxa qasab inuu substitution uu sii sameeyo Scaloni waa la hayaa waxaan sugan doonaa dabcan bedeladan uu sameeyay iyo sida uu shaqeyn doona maadaama reporting aan ku jirno labadii center back diinina qaatay markii loo fiiriyo Lisandro Martinez iyo Couto Romero jaalooyin ka qaateen odayga marka waa qamartay markii hydration break biicabaalka la aaday Giovanni Simoni iyo Molina iyo wuxuu bedelay Lisandro Martinez oo jaalo qabay wuxuuna keensaday markii la fiirsho Otamendi iyo Martinez ku bedelay De Paul wuxuu ku bedelay Giovanni Simoni halka Montiel uu keenay Molina uu dabcan keensaday Ingiriiska dhankooda waxay sameeyeen waxa baxay Anthony Gordon oo macalinka bedelay wuxuu
keensaday Isra Konsa sababtoo wuxuu u jeedaa inuu Argentina weerar ku soo guraan waa inuu difaaciisa xoojistaa marka hydration break iyo dabcan badaladan la sameeyay wixii ka soo baxana reporting waa si wadi doona saaxiibayaal war saaxiibayaal markii hydration break laga soo laabtay oo badaladii uu sameeyay Scaloni calaayad xaal Ingiriiska waa la qabtamaan waa la ku sababta markii hydration break laga aadayaba waa ogeen Nico Gonzalez iyo madaxii Messi u saaray uu ka celishay Jordan Pickford ma la isku soo laabtay alaab kale oo halis badan haddana wuxuu ka celishay Alex McAllister uu ka celishay waliba aan caadi ahayn oo reedta haddana madax kale uu ka celishay war Messi garab midigu Korea caawa Ingiriiska cardaadiq uu ka dhigay oo Tuchel ismaacatana asigana wuxuu ismeeyay mataqaanina difaac leh ku soo aroori ma difaac hal gool Argentina ka difaacan kartaa Argentina marka hore siran Tuchel waa la gaa dagaal la ciyaar xusna kuwan caawa ma soo baxaan dagaal ay ku wada jiraan gool ku yeelata meel la socdo ma jirto no way Tuchel caawa waa la gaa badalada la sameystay iyo rag la keensaday iyo asigana difaaci kan waa la iska qabsaday ninka waa la iska heystaba kadib maxaa dhacay daqiiqadii dabcan 86 waa ka warqabteen wad assist Messi uu sameeyay kubadii koonada ahayd u soo laabatay odaga Ingiriiska dhanba waxay ii galeen difaac madax iska ilaalinayeen Enzo oo banaanka joogo qof raacanay male Enzo banaanka loo soo dhigay Pickford waxa la maanta madax ma celinaya la gooshaada ma ku dhex jirtido tan qawaba gantaalkan shakab haddana Premier League ka ciyaaro Chelsea u dheelo ha ka dhalsho gool garoonka dhan waa dumir waxa aniga caaw waxa yaaba Atlanta waxa ku jira garoonka dhinacaas magaalada Atlanta ku yaalo waxa ku jira Argentina miya sababto qaylada iyo buuqa Ingiriis goolka dhashay xataa saama u buuqan waxa kaaga sii daran haddana markii goolka dhashay garoonka waaba laba qarxiro sababto caadi ma war meesha Argentina ma guriga iska leh waa fahmi waayo waxa ka dhacay laba qarax iyo buuq aan caadi ahayn daqiiqadii 86 xal si galay ahayd assistiga odag uu sameeyay all time assistiga si wadanaya wala yaaba waa hal iyo hal Ingiriiska waaba jawaab marka hore culays haystay waa daalnaayeen oo laga barbaray ciyaarta waa u dhamaatay haddana waa la ciyaar maxaa dhacay waxa lagu daray 9 daqiiqo mar kale haddana ninkii magic ah Messi war Thomas Tuchel warkii uu dhahay Messi aan raacayna Messi kan yeelna odaga maal raaci karaa no way Messi lama raaci karo midigto caaw nafta ka qaado dhag waa cishta haddana kubad kale wuxuu isdhaayeen waxay u barteen inuu gudaha u qaato saan u soo karoosay u barteen mogtay dhinacan loo qaataba gudaha geeska garabka la aad markaas midig Messi keenay ka warama wallahi odaga caadimaha daqiiqadii 92 kubadda uu soo karoosay madaxa dabcan uu ku la helay Lautaro Martinez ciyaarta tuwan laba difaac Ingiriis dhexdooda ku jira jumping uu sameeyay shaqadii loo keensado Lautaro waa qabtay wad ahead ciyaarta laba iyo hal ka dhigay waxa ogaateen xitaa kubaddaas oo Messi uu caawinayo ka hor Ingiriiska ayadoo la haysta build up ka McAllister wuxuu ku dhuftay birta ku dhuftay qoriga goosh soo laabatay odaga helay waa iska heestaale isla kubaddaas ka imaado goolka labaad ana caawo Thomas Tuchel damin fariin u rab yaa Tuchel daa ciyaarta daawanaysa Tuchel fariin u rab live reporting aan ku jirnaa caawo ciyaarta bilaawat ilaa hadda reporting aan sameeyay calaayad taxal muuqaalkan waa isdaba socda waa isku xiriirshay waxaan caadi ahna dhacay halfka hore haduu marax ciyaarta ahayd oo aan ku caajisnay second half kan dambe waxa waa la kala baxay 9 daqiiqo lagu dara dhamaatay xitaa garsooraha ilaa iyo daqiiqadii 12aad 12aad uu gaarsiiyay waa iska sii waday Ingiriiska waxba waa tari waayay marka Argentina markay ciyaarta dhamaatay gees waa la soo dumaan ku dheh wax aan caadi ahayn dhacay waliba waxa kaaga sii daranbo odaga caaw soo u dabaaldeg habeen dhaxas oo yina ahayd mogtay caaw oo yima jirto odaga qaylo iyo raganimo iyo karti finaal u soo bixi koobka u muuqdo inuu difaacdo 90 minute kaliya ka xigto 90 minute ka xigto odaga inuu koobka difaacdo haduu taas sameeyo Argentina waxay noqonayaan dalkii ugu horeeyay oo 60 sano kadib World Cup difaacay noqon doonaan marka war ma jira yaa waxa caawa Messi xulafadiisa wallahi half time ka reporting aan sameeyay iyo second half kan dambe waxa dhacay shaqo isku malaha waxaan u jeedaa Ingiriiska hadda waxay ku ciyaaraha ka faalooda Justice League 2018 oo kala nagu dhacday 11 July 2018 ma iloobi kan 2018 Ingiriiska Croatia semifinalka banaanka dhigeen England waxa waaye in this game 5 darbe gameen waa the lowest total single game waa darbooyinka ugu yar ee kulan World Cup ridaan waa sidoo u bilaaday half ka darbe ma jirin qaybta 5 darbe ridaan laakiin Argentina second half ka dambe the way ay u ciyaareen waxa ay sameeyeen unbelievable war iskuwaaka aan firin half kor darba ma diiwaan gashnaan laakiin second half kan dambe maxaa dhacan eegina walo kullu Ingiriiska waa la cajiima ma ahane waa la ruqo second half ka dambe sida gool markay dhashana ugu dambeysay ciyaarta Ingiriiska sida loo heystay waa ku dhamaataba marka balan eegno iskuwaaka waxay ka soo daawaceen sida muuqata hadda statistics kan eegina waaba kanaabo laba yaal ciyaarta soo dhamaatay big chance created Argentina 3 abuuran Ingiriiska halka xabbe shabaq gaarsiin 15 darbo saadaad ko ilaa nimanka waa jabeen waxa caadi ah
ahna markuu ku dhacay 15 darba lagu riday oo 5 kamid goosha ku aaday Ingiriiskana 5 darba rideen 2 kamid on target kaliya sameeyeen xerada ganaaxa Argentina Ingiriiska inta tagan caawo 28 jeer ku taabteen war Argentina nimankaas aan hore kugu sheegay maba naxambo no way ay ku dhaafay ma jirto Ingiriiskana waxa waa 7 jeer kaliya xerada ganaaxa Argentina kubad ay ku taabteen kubadda heesashada 64% Argentina ay gaarsiin Ingiriiskana 35.7% koornooyinka 6 koorna Argentina heleen Ingiriiskana hal koorna heleen fouls committed 15 foul Argentina ay galeen nimankan odayaashan waxay galeen dabcan 11 foul Ingiriiska ay galeen dhinaca kale tan waxa waa back to back finalist waa nimankan finaal ku soo laabteen waa dalka lixaad ee koob adduun difaacanay oo finaal u soo laabteen noqdeen Argentina 34 Talyaaniga qaadeen 38 finaal ku soo laabteen way difaacdeen Brazil 58 koobka qaadeen 62 ku soo laabteen waa difaacdeen 86 waxa Argentina koobka qaadeen 90 soo laabteen waa laga qaaday Brazil 94 koobka qaadeen 98 soo laabteen waa laga qaaday Faransiiska 2018 koobka dabcan qaadeen 2022 waa difaacan waayeen Argentina 2022 waa qaadeen 2026 ma difaacan doonaan oo axadda 19 bishan July kala bixi doona insha Allah ma difaacan doonaan waa su'aasha taagan aniga waxaan qabaa inay koobka nimankan difaacan doonaan nimankan u jeedisa u weerarayana war waxa waxba laga qaban karo taariikhda most goal involvement in history marka loo Messi 33 gool World Cup kullu yeeshay maadaama hadda almost waxaan isla hadda meeqa caawin uu sii maraa 12 caawin uu sii maraa 33 gool kullu yeeshay waxa ku soo haray ninkan odaga Kylian Mbappe 25 gool ku lug yeeshay farqiga u dhaxay fiiri meeqa u dhaxay wax shaqo isku mala goal involvement aan ka hadlayna waxa kala soo qaadan karnaa ninka odaga Messi maadaama 12 caawin oo tartankan uu ka sameeyay waliba waxa leeyahay dabcan 10 caawin oo kamid ah nag out u sameeyay jaab ninkan kama qaraabto group imahaya to alif 10 goals oo kamid ah nag out run sal sameeyay caawa dadkii dhigi jireen Messi FIFA u helisay iyo murna dhaca iyo murna ma dhicin caawa raganimo iyo comeback waliba Ingiriis kaba weyn awood badan oo gool kugu leh 65 daqiiqo sal dhaaf hydration break markii la aaday labaad Ingiriiska ay gool lahayn dabcan laga soo laabtay qadis 86 daqadii 92 gool loogu shubo raganimo tan waa dhaaftay nimankan yaa adkaysiga iyo kartida mid kale igu wacay dadka ku hayeen Argentina waa dalkii ugu horeeyay oo dabcan sama finaal koob adduun imaado ka soo badiyaan dalal dabcan qiimeynta FIFA ranking ku jiro top 15 wixii ka gadaalay macna hatta top 10 ranking aanan ahayn kuwan yaa waa kaba weynahan yaa waa soo top 4 kuma jiraan rankingka top 3 ku jiraan hatta saaka warqabna Ingiriis soo lama dirin Spain waa lagu daraa markaas war kala sheegay ninka Messi wixii laga sheego meel ku qortaale waa imaanale caawa without controversy muran la'aan awoodda uu sheegtay fariinta uu diray labada caawin uu sameeyay Ingiriiska sida loo koosay hambali Argentina waxa waaye amaan waa ka dhantihiin wad inaydan daawane live report kana saxbal intaas ku eegay idinkana aad u maasantihiin mar kale Messi taageerayaashiisa waxaan leeyahay hambaliyo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh